dadka ugu badan ee Soomaaliya meeshaas jooga waa dad arday wax barta dabcan saa sheegtana xiriir ma jiro xataa safaarad meesha ku taala ama qunsuliyad kuma taala xatee marka Soomaalidu meesha wax ku barata ma yihiin dad isku xiran oo ardaydu ma leeyihiin union ama midow u gaar ah oo ay xaaladooda kula tacaamulaan of course horta meesha safaarad iyo qunsuliyad midna ma lahan ardaydu laakiin waa dad is yaqaan wax meesha dhan waa arday jaariyad kale ma jirto dad way jiraan imaado oo ganacsi intay qorshe iyo dhil u tagaan ta soo xirto soo taga laakiin wax meesha ku nool waa arday marka ardaydu way soo ogtahay iyaga is saaxiibsada iyaga is ehelshada iyaga iska warhaaya marka saas waa jiraan jaamacad walba intii dhigatana waa union gooniye leedahay midowga ardaydaas jaamacadaas si guudna way jirtaa yani urur ay ku midaysiin ardayda Soomaaliyeed magacaas union guud waa jira qaabka u shaqeeyo wax ma nooga sharaxi kartaa hadii aad wala effective weyn ma noqonayo oo wixii waa arday magac ahaantaas inuu jiro haddii yani dhib iyo problem markaas taagan uu jiro oo arday iyo dawladda kale iyo qof yani in dadka dhexdiisa laga raadiyo dad luqadiisa fiican u yaqaano oo qofkaasi kiiskaas kala campaign gareeyo oo yani la fududeeyo Soomaaliduna dee wadamada noocaas oo kale crime-kooda ma badna dambiyada ma badna oo dambiye badan kama geystaan maadaama wixii arday u badan yihiin oo marka laga soo tago waxbarashada luqadda ugu badan ee dalka looga hadlo waa Bengali oo dadku Soomaaliduna waxa laga yaabaa luqadaas inaysan markii ugu horeysay ay tahay ay arkaan marka ay xagga joogaan intana meelahan aan lagu baran bal sidee dhalinyarada Soomaaliyeed dalkaas wax ku barata ay u dhex galaan dadka daba luqaddu ay tahay waxa ugu muhiimsan ee communication-ka dadkaas wax ka bedelaya marka jaamacadda la joogo iyo goobaha barashada luqadda la isticmaalo waa English marka laakiin suuqyada la joogo waa arkaysaa yani qaar ku Englishka yani jajabsan kara horta iyagu waxay u badan yihiin intooda badan dad ka soo shaqeeyay wadamada khaliijka ardayda meesha wax ka barata maya yani Bengalida aad waxay ugu shaqo tagaan wadamada khaliijka hadday Sacuudiga Imaaraadka Qatar iyo Bahrain iyo Kuwait marka carabiga jajabsadaan isku dayayna Soomaaliga marka lagu hadlayo carabi uu eegyahay in carabi ku hadlaysid xogaa Ingiriiskan way bowsan karaan Soomaalidu laftirkooda luqadda way barbarataa si kale kuma baratay inta yani suuqa wax looga soo gato xogaa barbarataa marka waa iska macaamilaa bini aadamku moogtahay haddii hadda ku ugu luqadda aad lagu geeyo ayaan kadib waa isfahmaysaan shanfarood lama isfahmi waayaan Soomaalida luqadda isfahan wax ku kala iibsadaan gartay dalkaas waxbarasho waxa u tagtay master waxay sheegtay inaa bachelorkaaga ama qaybtaadii koowaad ee digriga inta ku dhameysay dalkana kulay jaamacado badan ku yaala bal Abbas Cabdirabbi maxaa ku kalifay iyadoo jaamacado dalka ay yaalaan master ay bixinayaan oo qaarkood xataa laga yaabo inay PhD hadda soo kordhinayaan ama ay wadaanba in Abbas uu qurbaha waxbarasho u doonto waa su'aal muhiim ah bachelorkii waxaan ku qaatay yani Soomaaliya sababtii uu kaliftay inaan master yani aan halka u doonto horta yani takhasusku wuxuu ku fiican yahay inaa wax badan oo diversity ah yani ay ku lamaan yihiin marka wadan kala tagto marka ugu yartahay waxa soo ogaanaysaa yani bal horta waxa aad baranaysi oo waxbarasho soo baratay iyo dunida isku sima loo arkaa yani levelka aad ka fakaraysid ma ka hooseysaa يعني wax aad ku qiimeysid oo weyn ma jirto laakiin marka intaad wadanka ka tagtid wadan kale aad yani waxbarasho u tagtid dad kala duwan oo kala wadan oo kala dhaqan aad kala soo tagtaan waa in aqoontii wixii aad soo baratay ay isku level in idin keeni karta aragta ama inaad ka hoosishado fashalanta aragta horta qodobkaas uu ahaa yani inaan anigu aan waxa aan soo barto horta ma inteen ka joogaa inaan ogaado muhiim ahayd iyo dunida sida ay u aragto waxa labaad oo muhiimka ah waxay tahay markaas takhasuska aan rabay oo wadanka aan ku badnayn takhasus yani discipline cusub oo aan waqti badan aan sii jirin oo ahaa aan maadaama diyaarna development study Allah yani dawayga ama hanaanka yani dawladuhu ay u horumaraan ee ka turjumaadii environmental ay tahay hadii social iyo bulshada ay tahay hadii economic dhaqaalaha ay tahay marka hadda cid takhasus bixisana kulli hadda inay jirto waa maleynaayo mar raadin maadaama baahida hadda ay sii tagnin laakiin waqtigaas ma jirinin
يعني cid soo faabixis meelaha qaar way jireen inuu bachelor ka bixi laakiin iyadoo takhasus ah ma jiro maan arkaynin Bangladesh waxaan ku doortay wadamo badan oo kale way jiraan oo yani laakiin wadamada soo koraya oo development countries ka laho waxaa jiro qodobo yani lagu kala fiiriyo oo yani UN-ku uu dejiyay marna 2000 la dejiyay ilaa 15 la qiimeynaya marna 15 ilaa 30 hadda yani waxaa la dabaqaya la apply gareynaa waxa loo 17 sustainable development goals wadamada marka xoogaa la dagaalamaya bafartiga iyo faqriga iyo yani cudurrada iyo gaajada iyo isku day inay ka guuleystaan ku jirtay marka maadaama wixii aan baranayo ay practiceynayaan yani waxaan doorbiday inaan saas darteed aan iyaga aan xoolo biirsado si wanaagsan marka kulay dalka qaybo kamid ah waxbarashadaadii heerka koowaad ku dhameeday tii labada xagga u tagtay maxaa is leedahay jaamacadaha dalka waa ay ka maqan yihiin waa ka maqan tahay oo in lagu soo kordhiyo way ahayd maadaama aad waxbarasho qurbo aad tagtay oo aad takhasuskaagii ku soo qaadatay halkaas waa mahadsan tahay su'aal muhiim weeye jaamacadda dalku horta waxbarashadooda waa fiican tahay oo hadda wax aad u weyn oo lagu dhaliilo runtii ay muuqdaan laakiin environmental ahaan yani environmentiga jaamacadeed waxaa moodaa in intooda wadan aysan u diyaarsanayn oo yani ardayga galaaskaas uu galo kadibna uu iska baxo library hadda jaamacad haysato library weyn oo ardada ay access u wada leeyihiin in jirto ma u maleynayo haday jirtana waa yani library oo marna xiran marka qaarna furan environment kale ardaydu ay wax ku diyaarin karaan ma jiro fasalkan dhigataa haddii galaas ku dhamaado waa inaa baxdaa galaaska laga yaabaa inuu galo meel marka environment ku haboon inuu qofkii yani wax daraaseeyo inuu qofkii wax akhriyo ma jirto laakiin halka jaamacada adduunka markaa fiirisid intooda badan standardka oo yani environment ahaan ugu saxsan yahay library-ga ay heli kartid yani waqtigaa doontid si wanaagsan ilaa habeenkii yani saq dhex laga gaaraa xilligooyaadka library heli kartid goobo wax akhriska bas heli kartid ama qaaxiye inta la fadhiisto xataa heli kartid yani marka comfortable qofkii marka maktabadaha akhrisku waa ku badan yihiin dalkaas hadda waa ku badan yihiin baabuura jirta xataa socoto oo dariiqa inta iska raacdid lacag yar aad bixinaysid akhrisanaysid ilaa meesha aarta uga degaysid yani maktab dhan waxaa arkay gaari oo socda buwaagaa jirta aad soo diinsan kartidoo inta lacag yar bixisid aad soo amaahanaysid oo soo akhrinaysid celinaysid si wanaagsan marka akhriska moodaa inuu ku yaryahay waddankeena isu guud hadda jaamacada tahay hadday banaanka tahay intaba waan gartay inta badan waxbarashada heerka jaamacadeed dalka waxaa lagu dhaliilaa in ardaygu markuu dhameeyo jaamacadda ama master ama bachelor ahaadee inuu suuqa shaqada ku fashilmo maxaad isleedahay waa lagu sabeyn karaa cillada noocaas oo iyadoo hadda wasaaraddii xataa ay soo kordhisay waxbarasho foundation ay ku sheegtay oo jaamacadihii ay hal sano ugu dartay waddanka yani inuu qofku shaqada ku fashilmo wallahi waxbarashada markuu ka tago macnaha in suuqa shaqada sidii la rabay aysan uga soo bixin ardaydu aysan ka soo muuqan horta in fursadda shaqada la helaa ka horeysaba in la fashilmo waddanka fursadda shaqada aada u yar inta heshana waa in yani nasiibkooda fiican yahay iyo in yani graduation iyo farsamooyin kaleeto wax ku helay marka waxyaaba ugu badan dadka fashilma waa dadka xataa aan nidaamka saxda ah waxbarashada waddanka aan marin aan dhihi karaa laakiin qofka hadduu si saxa uu iskuulkiisii hoose dhexe sare uu nidaam ahaa jaamacad waddanka waa nidaam ka baxay inuu fashilmo ma u badna laakiin waxaa aragtaa waxyaabaha koorsada la yiraahdo ardayda markii fasalada oo dugsiga dhiganayaan ama dugsiga hoose ama dugsiga dhexe aaday ugu badan yihiin in qofkii la koorseeyo waxaa arkaya arday isagoo form 1 ahaa intuu kasoo inkastoo hadda markii dambe nidaamkan dowladda imtixaanka iyo waxaan roll numberka lasoo wareejinaya ee adkaatay laakiin beriga waxa dhihi jirtay qof form 2 ahaa kasoo tagaa wuxuu tegayaa form 4 ama form 3 yani sanad ama 2 sano oo ku xadaa dugsiga dhexe waxaa laga yaabaa inuu sanad soo caaday qofkii saas ahaaya haddana jaamacaddii waxa waaye uusan dhibca hoose oo C iyo wax lamid ama B meenis baasaa marka taas caqabad keeni karto iskuulo oo yani
commercial oo badan oo ayaguna commercialku ma wada sino dee wax fiican koley way jiri karaan laakiin qof dugsi hoose dhexe sare wixii yacni lasoo diyaarinaya dhan kusoo koobaya 2 sano 3 sano iskuulka oo dhan dabcan lama mid noqon karo qof waqti iyo juhdi geliyo oo 9 sano ama 12 sano wax soo baranaya. waa garta marka foundationkan jaamacaduhu ay soo kordhiyeen oo laleeyahay ardaygii baa lagu diyaarinaa preparation loogu sameynaa oo si wixii uu baranayay ay u noqdaan wax fadhiya ama arday tayara loo soo saaro oo halka sane ma kula tahay inay tahay waddadii saxda ahayd la qaaday mase foundationka of course waa faa'iido badan u yeelan kara dadka qaar waa laga yaabaa inay markay ka carwoodaan markay maqlaan sanad yani aan jaamacadna ahayn iskuulna ahayn oo meel dhaxa yaa dhiganaysaa laakiin ardaygu marka koowaad oo uu jaamacadda bilaabo sanadka hore oo dhan yani waxaa laga yaabaa inuu xoogaa ku yar shoogsan yahay wixii uu meesha kala wareega yani inuu kasoo baxay iskoolkii iyo nidaamkii oo nidaam kaloo jaamacad usoo galay inay xoogaa khalkhal iyo wax ku abuurto inuu semesterada hoose dhibco hoose uu ku baaso laakiin foundation hadduu helo foundation waxay ka caawinaya waa buundo yani isku xiraysa labada heer waxbarashada tii iskuulka iyo tii jaamacadda in yani wax la xiriira casharada jaamacadda uu qaadan doono maadooyinkana loo sii bilaabo iskuulkiina weli loo sii memorize gareeyo oo revision ay u noqoto markaas xoogaa qofkaasoo dhisan oo waxa jaamacadda ay tahay concept fiican oo buuxa ka haysto uu semester 1 saas ku bilaabo dabadeedna uu performancegiisa iyo dhibciisu ay wax fiican oo qurux badan inuu ku baasa ay noqoto. waa garta dalka aad tagtay dabcan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo waxbarasho u tagay waad la kulantay Soomaalidana waxaa la sheegaa qurbaha hadday tagaan in dad badanna ay waxbarashada sidii la rabay aysan u baran oo ay ka dhacaan dadna si serious ay wax u bartaan oo ay bal Bangladesh dhalinyarada aad kula kulantay ma isleedahay waxbarasho kuwa ka dhacayo waxbarashada wax kale ka doorta way jiraan dabcan dadku hadday number badan noqdaan wax yani qaloocda ama wax wadada ka leexda ma la weynayo way jiraan hadday way jirtay oo yani ama daraagis wixii markaas la heli karo yani isticmaalay oo xogaa waxbarashadii ka saaqiday kuwa kaloo dee baashaal dartiis aan dhiganinna wayba iska jireenoo biilka uun iska qaata waa la helaa laakiin number ka badan ardadu waxay u badnaayeen kuwa waxbarta laakiin way jireen kuwa yani drop out oo ku fashilmay waxbarashadii ama nolosha caadiga ahayd oo kale xataa ku fashilmay marka arday tusaale ahaan dalka ka tegay Bangladesh tegay shaqooyin badan aysan jirin oo dalku dal iska sabool iska yahay waxbarashadiina ka dhacay sidoo uu noolyahay dalkaas inta ugu badan dadka oo wadankaas yani nolosha ka dhacay waa dad yani maxaas dhihi karaa mental stress oo kaleeto intuu helay wadanka jaamka iyo buuqiisa iyo xogaa daraagis iyo wax ku dhuftay markaas darteedna u badanba inay jiifaan ama ay baashi raadiyaan iyo wax lamid ah waa number yar oo badnayn daraagis aad ma lagu isticmaalo dalkaas wallahi ma badna laakiin waxa jirto in khamriga oo kale يعني فوريانك أما جانبته كلا جدو خصوصا من الله أقول أيق إن لقي يبيو لكن جانبته ما يبي لقوا احترام معه سأمرك حدا عيسى إن يعني كوا عبتوي ودين كولش إلا صاحبان قف كفوريان كاي عبتوي مركا سباس بوركيس لوجسو يبيو يعني خمرة لوجسو يبشر كرام صناعة عشان كلا وسكجري من بدنا لكن وح كبدن أنت فشل أنت كسر نقطة مركا تكتو يعني أنت تقولك جرت social media oo kale adduunka saameyn ku leeyahay wadamada qaar Malaysia oo kale waxaa la sheegaa ardayga hadii uu waxbarashada ka caajiso ama uu si kala waxbarashada uga dhaco waxaa la sheegaa inuu YouTuber noqdo social media platformyada kala duwan la isticmaalo dalkaas ma jiraan dad Soomaali ama dhinac ugu ah social media qayb kamid ah waxbarashada ka doorta maya Malaysia oo kale waa wadan de lecture oo dadku يعني access بدن وهلي كان هنا محدوبان أما يعني لكن بقال لي سام كل شيء هو وضن شقوة وضن تدك إفورتي قد أقول بدن يكون بحنايان يعني homeless كوضن كاس عاصمة ومقال أم كنا علينا بس 10 مليون أوقف على شيء يعني homeless يهين ندر بيجي في مركز در بيجي في الشيء أنا وحمركب كوسا بحس در نورش كلاعي
maahan dad shaqeeyo oo gobolka yimid oo familkooda gobol degan yahay magaalada meel ay seexdaan aan ku haysanin habeenkiina wadadu seexanaya iyo baqaarada hortooda iyo dukaamada markii la xirto subaxiina uu shaqo tagaa yani nolol waxa ka jirta oo halgan ah marka nolol noocaas ma saamixaysa marka nolol luxury ku noolada qofka maxaa ugu darnaa is leedahay caqabadaha haysta ama ka mashquuliya waxbarashada markay dhalinyarada qurbaha aadaan dhafarka dhalinyarada Soomaaliyeed sida ka war haynaba yani xataa marka wadanka jooga ha noqoto laakiin xogaa familiyada hadda muugta ah guriga waa family dadka seexanayo marka qofka waxa laga yaabaa inuu iska seexdo isaguna marka uu bato uu telefonkiisa uu ku dhafro laakiin marka qurbaha ay tagaan wadan walbana waayo waxa gooni ah ma jirto aad u dhafraan Soomaaliyeed habeenka dhan waxa dhacday in la soo jeedo oo subaxii la jifto dadka qaar marka subax galaas ay leeyihiin 8 qof galaas leh oo xalay salaad subax gaar goormush uu galaas aadi karaa waa adkaani wuxuu ku dhafri karaa marka qofkaas waxa maadaama wax dhalinyaro ay yihiin oo yani guriga dhan uu subax family yihiin dadka dhan dhalinyaro asxaab yihiin in yani ay dheelaan ama laanduu dheelaan ama turub dheelaan ama ciyaaraha kale dheelaan ama cawisidii banaanka ku soo daahaan ama xaflad aadaan iyaga yani maanta dhan waxay sameeysanayaan waxyaabo ay u gaar ku mashquulaan ha si wanaagsan su-aasha ugu dambeysa barnaamijkan kusoo gabagabeynayna waxay tahay ardayga doonaya inuu waxbarasho dibadda u aado aad tusaale ahaan dalka hadda aad ka timid oo kale Bangladesh maxay yihiin caqabadaha ka hor imaan kara oo aad is leedahay inaad tala ka siido way habboon tahay xilligan wallaahi ordo dadka qaar yani dadku isku mid ma ahan oo marka hore wada Ilaahay la qabsiga iyo dabeecadda uu kala duwan qofka yani rabo inuu Bangladesh wax ku barto haddii qof dabci ahaan qof xirxiran oo iska maskiin uu yahay oo dadka dhex geli karin oo يعني ku adkaanay nolosha sababtoo meesha waa meel iska juhdi badan jaam badan saan qofka duu laakiin qof society iyo bulshada iyo la saaxiibi kara uu yahay absolutely waxa leeyahay way soo dhaweynay dadka oo yani wadanka u dhashana dad laga mana sheegto yani runtii dad yani dhibaato ah ama cunsuriyiin leh ama adiga ku dhibaateynay ma laakiin jawiga iyo yani environment iyo population iyo waxa inay ku diidaan wada karta laakiin qofkii wax barasho ka go'an tahay oo rabo inuu wax barto wax akhristo waqtina uu caadi u noolaado waqtina uu wax barashadiisa aad u wadan yani uu ku noolaan karo waaye marka caqabada ugu weyn yani wadanka in safaarad lahayn in qonsuliyad lahayn waxaasna waa laga sameeyaa marka documentiga qofku waqtiga intuu sadhicin ka hor inuu hadii safaarada indiyo la xiriir karo kale baasaboorka soo cusboonaysan karo haddii wadanka tuu fiisad ugu soo laabto uu cusboonaysan karo laakiin hadda wax caqabad oo dhigi kara caqabadaas Soomaalida ardada haysata qofka wax baranayo waa meel wax ku baran karo laakiin qofkii baashaal rabo meel lagu baashaalo ma aha marka su'aal aan ku weydiinaa jirto oo hadda su'aasha iga soo dhaafday nolosha maadaama wadanku wadan shaqo uu yahay dhalinyaraduna ay yihiin dad inta badan la beelo bal wadanka maciishadiisu waa sidee maqaaliba marqaysa aad u jabanta qofka oo Soomaaliga lagu beelo ardayga meeqa bilkiisu walax ugu qaalisan horta guryaha waay qofka duu magaalada centerkii degan oo kale 200 oo isku tagaa sidaan bilkiisa macal ijaarkiisa cuntadiisa ilaa 200 sida markii aan ku ogaa ilaa qofku ugu badan oo dhigi karo uu bil fiican ah qofkaas gal 250 waay marka noloshu aad u jabantaa qofku ugu qaalisan 250 oo macal waxbarashada ku jirto masaabiilka waa biilka yani qutulyoomkiisa iyo meeshu degan yahay waxbarashada laftirkeeda tuuma jamaahan iska jaban tahay masterka oo kale waxa laga yaabaa 3000 ilaa 5000 in all inuu ku baxdo laga yaabaa marka meel noloshu qaali ku tahay ma ahan noloshu ku jaban tahay noloshu ku degan tahay waxa aan environmentigaas waxa ka jiro oo yani jam crisis kaasi wax la mid ma ahan استاذ عباس عبد الرابي وان كاغا ماد علينا وقتها quruxda badan iyo aad la soo qayb gashay barnaamijka aqoon iyo qurbe okay thank you guud ahaan daawadayaal waxaa intaas inooga idil barnaamijka aqoon iyo qurbe aad kala socoteen warbaahinta Bile Media waxaan ahay Maxamed Sabriyatan iyo intaan barnaamijkan kiisa xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa amaan Allah